السلام عليكم soo dhawaada insha Allah asxaabtaygu xiran Zainab Shaqaadan Channel maanta waxaan idin wadaa video cusub waxaan aadnay xeeb kale oo maxaa la yiraahdaa bad anaga Mombasa hawsha ugu weynada oo baan waxay ahayd badda markaas xaabay soo dhawaada insha Allah tacaala waan idin wareejinayaa ku dhahay magaalada dhexdeedana waa idin maaragtay wareejinayaa badii aan tagnana waa idin tusaaya insha Allah Mombasa guriga gaagaaban oo qurux badan oo cajab waaye ma sha Allah dad waxay leeyihiin Mombasa maxaa la yiraahdaa meelaha aad tagto un baa qurxoon mooy dhinacyada kale hadaa tag lahayd maxaa la dhahay waxa waaye meelo oo saan ahayn marka waa iska caadi anaka maaragtay maxaa la yiraahdaa meelaha badda loo aadayo hadii la qurxiyay waa okay waaye xaafadda aan degna xataa ma sha Allah qurxi ahayd oo waxaan ku dhahay aad ay qurux badneed ma sha Allah kaana waxaan ku dhahay geedaheeba waxay ka yihiin dadkan cindigan ku dhahay cindig waxa laga wadaa macnaha waa buuxa amal insha Allah soo dhawaada asxaabtayda ugu xiran aad u mahadsantihiin daawashadiina janaaka laag dhaha subscribe asxaabtiin la wadaaga share dhaha waa mahadsantihiin dheero xaafada dhifaha laga helaa xaafada green saan u laakiin maxaa la yiraahdaa badanaa dhinacyada Soomaalida ay degan tahay saan uma geeda badna wallahi billahi waxaan ku dhahay waa meelo geedaha ku yar yihiin marka magaalada kale intay ka geeda badan tahay maaragtay way ka caafimaad badan tahay soo dhawaada insha Allah asxaabtaygu xiran aad u mahadsantihiin maxaa la yiraahdaa ayaantan cunto karis waa ka nastamay is dhahdeen cunto karis ayaantan waa ka nastay iyo jiko galow waxaan ku dhahay waxay maraysaa sheekada bad iyo waxaan ku dhahayaa socod leen saas waaye insha Allah tacaala aad u mahadsantihiin waxaan ku dhahay Mombasa qurux badan oo magaalo waxaan ku dhahay guryaha ka dhisan dhan buluug iyo cadaan leh waayba rinjiga buluug oo waxaan ku dhahay kalar yar oo buluug iyo cadaan wax yar ma ogi magaalada dhan guryaha ka dhisan saas waaye waa wada buluug iyo cadaan wallahi waxaan dhahay maxaa waayaan dhahay saan intee ka keeneen meeshan hotel ahayd qalada u soo galnay waxa u maleynayay albaabka laga galo xeebta u socnay waxa ku socnay maxaa la yiraahdaa maapka anaga gaariga wadanay marka maapka kala socnay inta laga galaa oo amal oo noo soo qoray kadib ninka security wuxuu dhahay albaab kale waaye dhinacaas u laabto waan noqonay dhinac kale ka soo galnay maxaa la yiraahdaa meesha calaamada ku dhagan yihiin maxaa la dhahaa waa soo galnay kadib waan noqonay laamiga dhinac kale oo la laabanay haddaan tagaynaa badan waaye public beach waaye tan maalin hore taan tagna ma amal ma ahan tii maalin hore aan tagna waxay ahayd mid oo maxaa la yiraahdaa hotel soo dhex maray tan laakiin meel soo dhex maraysid waxaan ku dhahay adile waxaan ku dhahay badda free u tahay qofkan aqoonina nimankan meesha jooga dhan kuraasi ku dhigayaan aan ku dhahay ayaga ku dabaalinayaan doona lagu saaraha ku dhahay waxaas dhan hadaa bixisada qarashkeeda waaye marka maxaa la yiraahdaa aaday maaragtay ku saacideynayaan lacag ay ka qaadayaan asxaabay maxaa la yiraahdaa badan meeshan xeebtan korkeeda ana waxaan kala garawaa meesha inay badta inay webitaa si weynta waa ka yaabaan kula buundadan korkeeda ma sha Allah tabaarak waaye aaday maxaa la yiraahdaa iga yaabisay marka asxaabtay sharafta leh video waa maaragtay waxaan ku dhahay waa isku dhex darsan yahay soo maahan xeebtii waa tanaa maxaa la yiraahdaa ayaan ku dabaalanaynay waxaan ku dhahay meeshan ugu yaraan qoraxdii ma dareemaysan ku dhahay ana waxa u malay jiray biyaha badda hadii qorax ku dhacdo kuleel leeyihiin laakiin biyaha badda ma kululaanayaan qoraxda jirtay meeshaan ku dhahay waa dhalaale badda marka gishid caadi u qaboobayaan ku dhahay caadi u qaboobaysaa ma sha Allah tabaarak waxaan ku dhahay meel qurux badan ay ahayd oo ma sha Allah cajab oo waxaan ku dhahay habi aad dareemaysid maxaa la yiraahdaa insha Allah tacaala waxaad leeyahay asxaabay hal iska warwareego saas waaye qofkii chance u helay insha Allah waxaad leeyahay video inta kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh